بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo taariikhdu ay tahay 29 bisha saddexaad 2023 odayaasha dhaqanka ee beesha Tunni oo kala ah beelaha Shangamas Story iyo Shangamas Baraawe ayaa maanta shir isugu yimid. Ujeedada oo shirkoodana wuxuu ahaa in ay jawaab cad ka bixiyaan magacaabid oo loo soo magacaabay degmooyinka oo ah degmooyin Tunniyeed ee kala ah Sablaale iyo Kurtunwaarey. laba nin oo lagu magacaabay inay yihiin gudoomiye. Arrintaasi ayada ah waxaan doonaynaa in aan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Laftagareen iyo wasiirka arrimaha gudaha ee inta khusaysa arrintan in ay ogaadaan xaaladda dhabta ah ay ku sugan yihiin degmooyinkan ee Sablaale iyo Kurtunwaarey. Ujeedada waxa waaye in madaxweynaha inuu ogaado in qofkii ugu horeeyay oo warqad u geeyo oo u yiraahdo meeshan hebel iyo hebel iska leh inuu iska raaco oo dekreet u soo sameeyo waa laga roon yahay. waa sahal dadka deegaanka iska leh in ay lala hadlo la weydiiyo arrimihii oo markaas laga qaban lahaa deegaanadoodii si sahal ay ku dhamaanaysaa. markaas waxaan ujeedada hadalkaas u lahayn waxay tahay wax laga naxay waxay noqotay in maamulkii Cabdullaahi Yuusuf oo dawladdii ku meel gaarka ahayd oo kow lagu soo dhisayay Mbagati rag oo la yiri gudoomiye ay waxay u yihiin degmooyinka Sablaale iyo Kurtunwaarey qaasaan degmada Sablaale maqla jirnaa anaga in maanta oo 20 iyo dhowr sano laga soo wareegay in maanta inuu sheegto oo yiraahdo gudoomiyaha degmada Baraawe Sablaale ah isla markaana waxa la keenay meesha la yiraahdo Sablaale maanta in aan ka hadlo ama aan ka wakiil noqdo wax laga naxay waayo weligeed lama sheegin labana maqal degmooyin oo hadda la haysto sida degmooyinka Sablaale iyo Kurtunwaarey waa la ogsoon yahay waa degmooyinka nabadiidka gacanta ku hayaan. dadka degan waa la yaqaanayo oo dadka degan magaaladan dadkooda degan way yimaadaan way ku nool yihiin qaarna waa degan yihiinba dhul gurin way ku leeyihiin. kolka waxaan yaabna la noqotay dad oo soo qaxay waa jiraan oo xoolahoodii dhamaadeen oo beeriga oo ka dhamaadeen oo dhib haysto oo digil ah oo jiida ka yihiin digil. anaga walaalaheena waxaan ogsoonahay inaan soo dhaweynay dad u dhashay jiida oo degmada Baraawe ku soo dhaweynay laakiin ma ogin anaga degma Sablaale oo soo qaxday oo timid Baraawe wax la yaabo taas ma jirto. wax kama jiraan. waxaan ka soo horjeednaa aan diidanahay in degmooyinka oo degmo rasmi ah oo Tunni iska leedahay ay tahay maanta in la yiraahdo dad aan Tunni u dhalan in lagu soo magacaabo haddana waxa ka sii yaab badan sharcigaas meeshii ku yimid anaga ma naqaan kulay dastuurkana in dib loogu noqdo iska fiican tahay. xagee lagu arkay degmooyin la haysto oo nabadiidka gacanta ku hayo in laba nin oo gudoomiye oo ayaga ah ayaa jira banaankeena ku noolyiin markii loo baahday ayaga midalayaan oo xamar ay shil kaga qayb galeen Baydhabo kaga qayb galeen halkan way nagu yimaadeen Baraawe. taas wax ma suurtagal ma aad iyo aad ugu qalbi jabnay waana ka xunnahay mar dambe yay dhicin ummadan yaan la isku dirin. waxaan rajaynaynaa in arrintaasi in dib loogu fiirsado madaxweynaha iyo khaas aan wasiirka arrimaha gudaha sababtoo ah wasiir ku xigeenaha halka yimid oo arrimaha gudaha wax la yaabo waxaan rajaynaynaa in wixii maanta ka dambeeya arrintaas in la saxo waa laga weyn yahay odayaashii dhabta ah ay haddeertaan in la hadlayaan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. maanta halkan waxaan u fadhinaa shir jiraa'id kaasoo ah in aan aga hadlayno barnaamij daraad gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ay halkan yimaadeen ayagoo wada gudoomiyayaal degmooyin aan reerahooda deganayn ayagan aan u dhalan waxna shuqul aan ku lahayn inkastoo dadku digil u wada yahay digilnimo lagu wada dhashay digil marfo aan wada nahay walaalo aan nahay laakiin sharciga Koonfur Galbeed wuxuu dhigaa nin kasta degmadiisa uu degan yahay inuu wax looga dhigo maadaama daraad anigu aan aragnay laba degmo oo gobolka Shabeellaha Hoose ku saabsan oo ah Kurtunwaarey iyo Sablaale laba gudoomiye oo labada meesha la keenay waxay noo soo baxday qaladka aad ugu weyn inkastoo siyaasiyiinteena ay tahay haddana wasiirka arrimaha gudaha waxa laga rabaa inuu ogaado degmada uu isaga gudoomiyaha siinaayo in reerkiisa uu degan inuu ogaado. Kurtunwaarey iyo Sablaale walaalaheena reer jiida 5 qoys laga helmaa labada degmadaas Kurtunwaarey 5 qoys laga helmaa Sablaale 5 qoys laga helmaa see loo siinaa gudoomiyaha degmada.
taasi waxaan ka cabanaynaa qalad inay tahay in wax laga bedelo degdeg labadaas degmi waxa iska leh deegaankooda iyo dhalashadooda iyo asal awoowayaashooda magacyadooda ku soo baxay Tuni ma aha maanta in laba reer oo walaalaheena ah labadaas degmo lagu magacaabo adaga soo horjeedna shirkeenna maanta waa odayaasha Tuni kaligooda meesha fadhiya balse bari waxay imaan doontaa in annaga buuq iyo waxa dadweyne la isku keeno bulsho dhan hotel la wada tago taas waxaan in aan baaq u jeedino madaxweynaha koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaanada deegaanka mitila oo aan shaqul ku lahayn in micnaha ay ka hadlaan barnaamijyadooda deegaanada ayaga mitilaan inaysa ogeynba taasi waxa uu daliil ah xildhibaanka koonfur galbeed ama federaalka jooga ama dhaqanka suldaanka ahaado koonfur galbeed in ayaga meesha lagu magacaabayo oo ay tahay koonfur galbeed wasaaradii koonfur galbeed ay meesha joogto baydhabo ay joogto lagu magacaabayeen ayagana joogaan wax fiican ma aha waxaan codsanaynaa in wasiirka arrimaha gudaha barnaamijka wax ka bedelo tan kale labaad siyaasiyiinta reer Tuni waxaan leeyahay dal iyo dibad qurba joogta kuwa dalka jooga inay ayaga ay u dagaalamin xilka markaas qof walaalkooda haayo ilaahay calafku u siiyay kaas ina ka daba shaqeeynin inay u shaqeeyaan danaha deegaanka hadda anagu jubbooyinka ila iyo golweyn jubbooyinka waa deegaanadeena maanta Jubbaland hal kursi kuma lihin hal xildhibaan kuma lihin waxaan ku leenahay male ila iyo golweynna waxa diga Wurkooy Buulgaduud ila iyo laga taga golweyn ila laga taga goobweyn deegaan Tuni waa maanta waxaan ku leenahay male intaasi waxa keenay siyaasad xumada siyaasiyiinteena ay u dhaqmaan iska daba shaqeynta isku dhaganaanta qofba walaalkii oo xilka haayo ku daba shaqeynaa meeshuu asay ka shaqeyn lahaa deegaanada kale waxaan codsanaynaa odayaasha dhaqanka reer Tuni waxaan codsanaynaa inay isku duubnaadaan inay degmooyin gobolooyin jilib ilaa iyo golweyn xaq nooga maqan inay soo dhiciyaan